kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobadaad wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa iskugu yeedhay mucaaradka dalka Itoobiya guud ahaanba si mowqif midaysan looga qaato sida Itoobiya ay ku heleyd maranbiyood badeed sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya afhayeen u hadlay ayaa sheegay in madaxda midowga Afrika ay ka furmi doonto dhawaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya sidoo kale shirkaasi waxaa ka soo qayb gali doona madax sarsare oo ka mid yahay Antonio Guterres qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax weyn ayaa ka dhacay magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Axmaarada dad aad u tiro badan ayuu qaraxaasi waxyeello weyn gaarsiiyay sidoo kale safiirka dalka Mareykanka uu jooga magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa ugu baaqay inay dowladda Itoobiya baaritaan madax bannaan ay ku sameyso dad maalinimadii shalay lagu xasuuqay gobolkaasi qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay gooni oo soo dhawow warkeena ayaan u guda galaynaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa iskugu yeedhay mucaaradka dalka Itoobiya guud ahaanba si Itoobiya ay mowqif midaysan uga qaadato baa la yiri siday maranbiyood badeed ay u helayd ra-iisul wasaaraha Itoobiya mucaaradka uu iskugu yeedhay waxaa leeyahay waa kuwa hubeysan iyo kuwa aan hubeysnaynba hase yeeshee xogaha rasmiga halkaas ka imanaya ayaa sheegaya inay kuwa hubeysan ayna marna suurtagalayn inay kasoo qayb galaan waa Faano iyo Owale laakiin xogaga la iskugu yeedhaya waxaa kamid ah baa leeyahay TPLF iyo ururada kale ee sida kuwa Soomaalida iyo kuwa Oromada aan qalabka sidanin laakiin dawladda siyaasad ahaan ka soo horjeeda ayadoo ra-iisul wasaaraha Itoobiya aad moodo inuu fashilkii ugu dambeeyay uu marayo haddana uu jilbaha u dhiganayo xogaga mucaaradka mala dhigi karaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya gebi ahaanba uu ku fashilmay habsami socodkii dowladnimada dalka Itoobiya aad iyo aad sida waa maasan tahay waa inta badan oo ku fashilmay Abiy Ahmed dadka Soomaaliyeed iyo dadka caalamka joogana way la socdaan heerka xaaladiisa marayso wararkan waxay sheegayaan in ninkan Abiy Ahmed uu isugu yeeray mucaaradka shalay wuxuu la kulmay nimanka lagu magacaabo Tigreega mas'uuliyiin ka socotay marka waxaa kale uu yeeray muxaarada dad badan oo ka codsado mucaarada in markaas mowqif midaysan laga qaato xaaladda Itoobiya ku sugan tahay asagoo sheegay in Itoobiyaanku ay weli bad u baahan yihiin ayna tahay in markaas wada hadal laga galo ama sidee noqotoba bad inay helaan Itoobiyaanku marka wuxuu sheegay inaan mowqif midaysan aan ka qaadano caalamkana u sheegno warar badanna markaas waa isla dhaxmaraya oo Abiy Ahmed shirqool ay u dhigaan xubnaha mucaaradka sida wararku sheegayaan inuu xiro ayaa dhici karto maadaama uu leeyahay wada hadal ayaan galeynaa marka wax badan oo isdiidana jiro Abiy Ahmed wuxuu ku fashilmay dhanka badda wuxuu ku fashilmay isku haynta Itoobiya wuxuu ku fashilmay in mucaaradka uu xal waara la gaaro maadaama Tigreega wada hadal dheer ay galeen kadib oo ku fashilmay in wada hadalkii miro dhalo marka Tigreega waxay leeyihiin anagu dagaal ayaan diyaar u nahay maadaama wada hadalkii la galay shuruudihii aan soo bandhignay aan midna wax laga qaban Abiy Ahmed oo weli sidiis u soo taagan yahay marka xaaladdu halis ay maraysaa Abiy Ahmed wuxuu leeyahay ilaa inaan isku imaano oo aan anu tashano oo mustaqbalka Itoobiya ka tashano ayaan u baahanahay marka Abiy Ahmed wuxuu ku beer la xawsanayaa dadka reer Itoobiya iyo mucaaradkooda wuxuu ku beer la xawsanayaa in bad ay heli doonaan loona baahan yahay qaab midaysan inay bad ku helaan marka dagaal oo Soomaaliya la galaan oo maroono maadaama Soomaaliya heshiis la saxatay Turkiga qaab kale wax u qaatana ma yaqaan Abiy Ahmed marka nin aan siyaasadda wax weyn ka aqoonin oo taliye ciidan iska ahaa hal mar hadii xil loo dhiibo fashilkaas ayuu leeyahay dad badan jiray oo markaas iyagoo siyaasadda ku cusub wax badan qabtay oo markaas dadaal weyn muujiyay laakiin Abiy Ahmed oo kale maaha Abiy Ahmed inta la arkay wuxuu sameeyay isdhaxgal bulsho ayuu markii koobaad uu yimid sameeyay kadibna uu ku xaaray oo wixii dhan uu halay dib ayuu ka halay marka waxa dareemi kartaa Abiy Ahmed inuu ku calacalay war mucaaradku u imaada aan wax qabsano aan isku soo dhawaano waxyaabihii ay markaas mucaaradku u baahanayeen ma sameeyna marka mucaaradku ayaguna waxay rabaan xilka Abiy Ahmed inay la wareegaan oo markaas meesha ka saaraan asaguna wuxuu rabaa inuu mucaaradka qanciyo oo ku qanciyo in bad la heli doono in Itoobiya ay markaas barwaaqo u bixi doonto marka labada dhinac way isdiidan yihiin laakiin shir ay ugu baaqay qolada ugu horeysa Tigreega ka socotana way gaareen halkaas gooniyow ilamaha inay xogaga mucaaradka ee hadda kursiga ay ku haysteen shirkaas ka soo qayb galayaan sababtoo tahay dowladda Itoobiya shuruuc ay leedahay baa jira iyo xeer Itoobiya lagu yaqaan baa jira Itoobiya marnana ma fuliso heshiis ay jamhad la gashay jamhadda Itoobiya way la gashaa heshiis laakiin ma fulo tusaale ahaan waxaa jiray waqtigii Abiy Ahmed uu isbedelka ku yimid ugu yaraan 5 jamhadood oo awood lahaa oo Tigreega dagaal kula jiray inuu heshiis la galay sida ururkii ONLF kii Oromiya OLF iyo maartay jamhadii maartay Gimbood 7 iyo jamhado kale oo ay kala dhaqay dalka Itoobiya
dhammaantood waa kay soo xaroodeen hal jamhad oo barnaamijkeedii loo fuliyey oo ama uu u hirgalay ma jiro. tusaale ahaan kuwii soomaalida gebi ahaanba waa la kala dhantaalay ayagoo saraakiilla laga qaato la yidhi xisbigayna lagu daray, kuwii kaleetana la yidhi meeshaad la aadaysaan la aada, haddaad qorigiin dib u qaadasaan iniga inii taalla, haddayna qaadaynina iniga inii taalla oo albaabadii laga xidhay. sidoo kale oramada jamhadoodii waxaa kasoo dhexbaxday OLA baa kasoo dhexbaxday. OLF la jira tii hore markii ay soo xarootay markay arkeen inuu ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxba uuna fulin barnaamijkiina uu qalay yaa laag ayagii qayb kamid ah ayaa waxay ku dhawaaqeen OLA bay ku dhawaaqeen oo tan hadda xooga badan ee ka dagaalamaysa duleedka Addis Ababa ah. sidoo kale heshiiska lala galay Faano ayadana iyadoo Faano waxay ka faa'iideysatay oo hubkeedii wali kusii haysatay dowladda Itoobiya ayaa qorshihii TPLF lagu weeraray ayaa Faano iyadoo jamhada lagu yiri dagaalka nala gala ciidankana raaca gobolka Tigreegana weerarka qayb ka qaata anaga inala heshiina haddana waxaan leeyahay hubkiina dhigana dagaal gala. saas ayaguna hubkooda kusii haysteen haddana waa kuwa mar kale dib ugu noqday ee dowladda Itoobiya dagaalada culus kula jira. sidoo kale Tigreegan heshiiskii Pretoria iyo Nairobi ka dhacay weli wax ka dhaqan galay male, kursi gaaban baa la iskugu fadhiyaa. Abiy wuxuu ka baqayaa TPLF inay dagaalka dib u bilowdo. maalinimadii shalay waa kiis kugu yeedhay kulanka madaxda TPLF ee u ballan qaaday inay wax walba oo Tigreeg ay ku qancayaan uu diyaar u yahay, laakiin ay ka qayb qaataan midnimada iyo amniga dalka ayna xabadna ayna ridin, heshiiskiina dib loo cusboonaysiiyo, dibna loo sii wada hadlo. isagoo kumana sheegtay oo yidhi intii aan heshiiskeena la galay billions lacag ah ayaa gobolkaasi aan u fasaxay iyo bangiyadii oo dib u howlgalay, dhaqaale badan baa gacantiina galay waan ogahay, laakiin Itoobiyaanimada ayaa wax walba ka muhiimsan. isagoo aad ugu calaacalay markii ugu horreysana ay soo fadhiisteen hogaamiyaha TPLF ninka lagu magacaabo Gabrasiyon Gibre Mikael oo Addis Ababa soo gaadhay ugu yaraan 6 sano kadib ilaa maalinkii uu doorka galay ama qaliye dhulkaas uu joogay halkaas wax ka hagi jiray, laakiin hadda Addis Ababa dib ugu soo laabtay isagoo Abiy si toos ah soo fadhiisteen. ninkaasi Gabrasiyon la dhaho waa nin aad waxaa la yidhi xagga hogaaminta ugu dheereeya ra-iisul wasaaraha Itoobiya umaba aqoonsan weligii. waxaa la yidhi intuu Abiy hadda ra-iisul wasaaraha muna ugu ra-iisul wasaare wuxuu ugu yeedhaa korneelka fashilmay yuu ugu yeedhaa. hataa hadda madaxweynaha ku-meel gaarka ee Tigray mar uu ka qayb galay xaflad ka dhacaysa webiga Abay Itoobiya ay markiisa afraad buuxinaysay ayaa madaxdu waxay dhahayeen mudane ra-iisul wasaare madaxweyne kasta oo dowlad deegaan halkaasi khudbad buu ka jeedinayay. kan Tigreeg markuu soo istaagay qosol buu ku dhahay wuxuu yidhi anu afkii aan shalay ku dhahayay buu yidhi sargaalkan korneelkan fashilmay maanta ra-iisul wasaare uguma yeedhi kareen caawa ma igu qaadan buu ra-iisul wasaare aan kugu yeedhay isagoo haddana gacantiisa ku jira. marka nimankan Tigreegu waa niman aad u mayal adag, waa niman maaragtay aan fikradooda iyo qadiyadooda ka tanaasulin, waa niman aan maaragtay shilimaad qaadanin, waa niman qadiyada dadka Tigreeyaga ah ay ka aaminsan yihiin inuu aad u sharaf badan yihiin. oo qofka Tigreega hataa maxay dhahaan dagaalada markii lagu jiro ninka Tigreega isma dhiibaa la dhahaa, wuu dhintaa laakiin isma dhiibaa la dhahaa. hataa si kastoo looga awood badan yahay ninka Tigreega waxaa la yidhi hadduu qorigiisa hal xabba ku jiro halkaa qumac asagaa isku dil baa la yidhi intuu kugu rido ama uu kula waayi lahaa isagoo qori maran la qaban lahaa wuxuu ku leeyahay qoriga hal xabbaa kusoo hadhay halkaa xabbaana isku baktinaya isagaa noloshiisa madaxu iskaga dhufanayaa. marka nimanka noocaasa ayaguna way adag tahay sidii ay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay heshiis la geli lahaayeen. goonyow waxaa jira afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ninka Malas Alamu la dhaho ayaa warbaahinta dalka Itoobiya waraysi uu siiyey wuxuu ku sheegay inay Itoobiya shir ay martigelinayso shirka midowga Afrika ama madaxda shir madaxeedka midowga Afrika oo isagoo dhawaan ka furmi doona. shirkan sidoo kale waxaa kasoo qaybgeli doona xoghayaha qaramada midoobay Antonio Guterres oo isna lagu marti qaaday. shirkani waxaa looga hadlayaa ay Itoobiya u marti qaaday wuxuu yahay sidii Itoobiya ay maranbiyood badeed ay u heli lahayd. Addis Ababa ka furmaya waxaana kasoo qaybgalay baa la yidhi ugu yaraan 34 madaxweyne oo qaaradda Afrika ayaa lagu casuumay oo dhammaantood aqbalay. dadku waxay isweydiinayaan dowladda Soomaaliya ma ka qayb gali doontaa shirkaasi? Soomaaliya ma shir Soomaaliya lagu taageero xaqiiqda laga hadlo noqon doona mise shir Itoobiya waxa leeyahay madaxda Afrika ee 34 dal ah ay Itoobiya taageero u muujinayaan buu noqon doona. halkaasi dowladda Soomaaliya walaac badan ayay kala kulmaysaa oo shirkaasi waxyaabaha uu noqon doono ayadoo ninkan wasaaradda arrimaha dibadda u hadlay uu sheegay in ay Itoobiya ay ku qasban tahay inay taageero u raadiso helidda marinbiyood badeed midaan ay geed dheer iyo geed gaabanba ay u fuushantahay Itoobiya. hawshaasina ay hadda socoto wasaaradda arrimaha dibadduna ay ka shaqeynayso shirkaana dhawaan uu furmi doono. dowladda Itoobiyana ay u diyaar garowday sidii barnaamijkaasi uu hirgeli lahaa. marka waxaad moodaa Itoobiya inay geed gaaban iyo geed dheerba ay u fuushan tahay
sida qorshaheedii u fulin lahayd iyadoo diblomaasiyaddii dhanka arrimaha dibadda gebi ahaanba la dhihi karo Ethiopia waa lagaga adkaaday oo Soomaaliya ayaa kaga adkaatay. sidoo kale gooniyow waxaa jira inuu qarax weyn ka dhacay hotel ku yaala magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Axmaarada dad aad u tiro badan ay halkaasi ku dhaawacmay baa la yiri ciidamada faanana loo malaynayaa inay geysteen hotelkaasi waxaa la leeyahay waxaa deganaa saraakiil iyo maartay madax kale oo dowladda federaalka Ethiopia ka soo jeeda halkaas bayna niman weerar ku qaadeen marka bangacmeedii ku weerareen baa la yiri markabana hub culus baa la isweydaarsaday inkastoo hotelkii la leeyahay khasaare badan ayaa soo gaadhay oo nimanka hub culus bay ku garaaceen marka xoogii faanadu waxaad moodaa in ay qudhigoodu ay maartay dhimashada iyo khasaaraha weyn ee gobolkaas ka dhalanaya ay qayb libaax la ka qaadanayaan ayna weerarayaan xarumaha ay ku tuusan inay dawlad joogto iyo goobaha dhismayaasha ay ku urursan yihiin ciidamada dawladda iyo saraakiisha mucaaradka ee maartay sidoo kale ka soo horjeeda fikradda faanada sidoo kale gooniyow safiirka u jooga dalka Mareykanka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa qoraal dheer ku daabacay wasaaradda arrimaha andhaha safiirkaasi Addis Ababa jooga page-kiisa arrimaha bulshada qaybta ka isticmaalo ayaa waxa uu sheegay in dawladda Ethiopia looga baahan yahay inay baaritaan madax banaan ay ku sameyso maartay dhimasho maalnimadii shalay ka dhalatay dagaal dhex maray dawladda Ethiopia iyo ciidamada faano oo magaaladii ay joogeen dad rayid aad tiro badan wax suuqay oo dagaalkaas halkaas ku qabsaday waxaa la leeyahay ugu yaraan 145 qof ayaa hal goob ku nafooday oo dad rayid ah oo ciidamada hubkii ay ridayeen ay ku habsaday marka waxaad moodaa deegaanka Axmaarada waxa ka dhacaya inuu yahay wax aad u adag oo indhaha caalamku ayna u sii adkeysan karin laakiin tani waa qowda maqashiyo waxba ha u qaban Tigray waxaan ogeyn 1 milyan oo qof inay ku dhimatay ayadoo Mareykan iyo reer Yurub iyo cid kasta ay qayla dhaan dilaysay dawladda Ethiopia la xabada joojiya dadka rayidkaana ka joojiya bahasha Axmaaraduna wadadii may maraysa ay Tigraygu mareen marka dagaalka ka dhacaya gobolka Axmaarada wuxuu salfanayaa ama halaag u geysanayaa dad rayid ah oo waxba galabsanin oo maartay deegaanadaasi ku nool dawladda Ethiopia iyo faano labaduba jawaabo culus ay hawada isu mariyaan si maalinle ah oo qolada kale ay ku eedeynayso inay dhibaatada iyo fadqalalada iyo qaxa iyo burburinta deegaankaasi inay ayadu qayb libaax la ka qaadanayso ama iyaduba ay mas'uuliyadda qaadanayso laakiin isku soo wada duubo hay'adda xuquuqul insaanka iyo hay'adda inta badan u dooda xuquuqda shacabka dalka Ethiopia waxay ku wada maqraad fureen in militariga dalka Ethiopia inay dhibaatada ugu badan geysanayaan ayaguna ay yihiin xogaga weerarka qaadaya ama ay tijaabinayaanba hub aad u culus oo loogu talagalay dadka rayidka dhaxaysa in lagu dagaalamo inay faanada u adeegsanayaan sida diyaaradaha droniska oo dagaalkan qayb libaax ka qaadanayo waa ku sheegay inay yihiin askar ka wanaagsan kuwa qarabka sida uu sheegay inay waxyaabo badan ay ka hortageen ama hub badan oo mucaaradka gacantooda ku jira ay burburiyeen marka hubkan la iswadaarsanaya labada xoog waa faani iyo dawladda Ethiopia khasaaraha u badan wuxuu soo gaarayaa bulshada rayidka ee gobolka Axmaarada ayadoo dhimashadu si maalinle ah ay gobolkaasi ay uga jirto laakiin xasuuqii ugu dambeeyay adduunku si weyn buu ugu qaylay hal goob 145 qof inay ciidamada Ethiopia ay ku dilaan wala waxa la dhihi karaa midani waa xusuus u gaar ah qowmiyadda Axmaarada maxaa yeelay waxay iska dhigaan inay yihiin dadka maartay hay'adaha Ethiopia gaar u sheegta inay Ethiopianimada ayaga loogu yimid oo dadkan kale oo dhan ay yimaadeen ayaguna ay dadka ka xigaan laakiin maanta haday Axmaaradii ay ka cararayso Ethiopianimadii ay leedahay anaga nalaayay Ethiopian xasuuq ay leedahay watilkal ayaa mudawila beelanaas man ku tilmaami karaa maxaa yeelay Axmaaro dhahaysa maanta dawladda Ethiopia xasuuqday ayaguna ay dhahay Ethiopianimada Ethiopia la sheegay waa anaga dhahay magacaba ay tunka ku wateen waxaan dhigi karaa waxyaabo la yaabo ayay kamid tahay marka xaaladda dalka Ethiopia ayaa marba marka ka dambaysa iska sii adkaanaysa oo waji kala yeelanaysa lana saadaalin karin meesha ay ku biisho doonto dadku waxay leeyihiin Ethiopia abi ka damaynaysa male korneelkan uma qorsheysno inuu dalka si nabad ah ku wareejiyo sidii waxayla marayaan dhisalayn isu casilay oo uu yiri oramada xasuuqa lagu hayay military ku hayaan iyo dibadbaxyadan haddii ay xasilayaan anaa kursiga ka tagay uu yiri waxayla marin markuu tagay xisbiga la sukaaray talada hayay ay doorteen Abiy Ahmed maanta waxa la leeyahay haduu Abiy colaadan dalka Ethiopia ka socota iyo dhibaatadan taagan haddii ay iscasilaadis ay ku dagayso iscasiliya laakiin qodiis wuxuu ogsoon yahay baa la yiri wax is aaminaan oo damaynay jirin Tigray waa la baabiyay cuqdadii ugu weyneed bay qaadeen sida ku argoosan lahayn bay ka fikireen Axmaarada maanta la xasuuqay
ayaguna waxay leeyihin tallaahi marun gacanteeda may soo gasho ta ka dhacdaa la yaabi doonaa marka qolo isu dhigaysa male qolo walba intay wax ridi kartay ridi waana laysi sugayaa oromana abibaba hubeeyey oo owal iyo liu booliskooda weli kale kama dhigin wuxuu u hubeeyey hadii lacalab laga taagroonaado isdifaaca sidii neliline tigrayguna ayaguna halkaas ay tuman yihin axmaarana waa wata hadda rooreysa kuwii kale yararkaa oo dhanna way wada banjoogo waay marka xaaladda etoobiya gooni waxaan ku qiyaasi karnaa in ay tahay mid aan waxba laga qaban karin barnaamijka gabagabadii ayaan joognaa maxaad kusoo afjaa shidow horta arrintan Ethiopia waa dheeraatay waana dhamaan laadahay laakiin annaga Ethiopia gudaheeda wax ka jira waxa nooga daran damaca ay Ethiopia ku doonayso in dhulka Soomaaliyeed ku qaadato taasna waxaan leenahay Ethiopia hadii ka waantoobi weyso cawaaqib xumo ay kala kulmi doontaa Abiy Ahmed jahwareer siyaasadeed ayuu ku jiraa waxaan leenahay Ilaahay u kordhiyo dhibaatana Ilaahay ha ku keeno maadaama ummad Soomaaliyeed uu dulminayo waxaan dhigi karnaa qaladaadka uu galay darteed ayaa loo ciqaabayaa oo mucaaradkii wax walba ugu kaceen shirkan hadda arrimaha isugu yeeray Afrika iyo qaramada midowga isugu yeeray ma ahayn shir oo ka guul keeni doono markaas qaramada midowga iyo Afrikaba hore ay u cadeeyeen in dhul Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Soomaaliya lagu xadgudbo inay khalad tahay marka wax natiijo islahay malahan Abiy Ahmed waxaan leenahay marka ha ka waantoobo ku xadgudubka ummadda Soomaaliyeed hadii kale dhibaato ay kala kulmi doonaan waad mahadsantahay gooni idinkuna waad mahadsantihiin daawadayaal intaan barnaamij lamid ah ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo